السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ دماتي بعد وضعش قيمة قدرت مدن كوسو دوادا برنامج كيعيد وان كضوبة يوم مقالة بريستول هذا إمك وحن لقول ما يسافر كوريجا سومالان مدن كيسر عبد الله محمد أو عن كوري سنة يو بل مقالة بريستول سيل لوجع عيدي عم بستر بمقرأ عيد مبارك كل عام وانتم بخير. عيد مبارك كل عام وانتم بخير. وريه حرقوا بل كيسر بل عيد ما بريستول وطلع ضباط دقيقة عيد الفطر بل ما مقالة بريستول لوجع عيدي بس في الموقع شكل runtii aad mahadsantahay hay marka koowaad waxaan leeyahay bulshada reer Soomaaliland meel kasta dunida ka nooshahay iyo bulshada islaamka ahba ciid wanaagsan ilaahay wax ka bariyaa inuu ciideeda inuu gaarsiiyo caafimaad qab cibaado suban iyo horumar waxaan rajaynayaa in dalkeenu uu horumar sii gaaro dhinac kasta hadii ilaahay ka dhigo ciideeda ilaahayna wax ka bariyaa inuu naga aqbalay cibaadadii aynu soo jiray bishii Ramadaan runtii saad tilmaantay Bristol waxa looga ciideysay aad iyo aad wanaagsan waad aragtaa dadku soo faraxsan yihiin waxa weeyaan bulshadu runtii waxa weey maalin qiimo leh dadkii maalin jimcaha maanta weeye oo laba ciidood baa runtii soo keenay farxadood weeye dad badan shaqooyinkoodii way fasaxay ka qaateen oo wada dalkan wada shaqeeyay jimcaha alxamdulillah si sharaf loo wanaagsan bay noogu dhacday dadweynuhuna way faraxsan yihiin caruurii way faraxsan yihiin waa ka caruuray maxaa ay ciroolaba wata maxaa dadku way faraxsan yihiin كيسر مركز بربرتو عيدي هراء عيدا مركز تشوي قبل كوره مات runtii waxay la tahay inuu mar walba isku dhowdhoyin runtii jawiga waxa ciido tan waxa xiiso ku sii lahayd Ramadaan tiimka ay soo dhaafnay aad iyo aad inoogu dheereyd oo haayay dadkeena Ingiriiska ku nool iyo Yurubba oo ilaa 19 saacadood habeen dhawito oo mid xisaabinayay kamida jaaliyadu waxa uu yiri waxa u dhigantaa 740 maalmood inaynu Soomaaliyeed marka la barbar dhigo dalkeena oo kale 12 saacadood laga yaabo in laga soomo marka runtii dadku way aad ugu faraxsan yihiin jimcaha ay u noqotay ciid wanaagsan oo muxuu ahaayay sabtida ayaa runtii dadka dad badan ay filayeen marka jawiga ciidu hadiga isku dhow yahay laakiin marnaba uma dhiganto ciidii farxadda badneed ee dalkeena hooyo lagu ciidi jiray aad dareemaysay dalkan aan ku noolahay dal muxuu runtii maalin shaqo u tahay inkastoo muslimiin badan ay ku nool yihiin marka runtii ciidan waa ciid wanaagsan laakiin waxaan mar walba aad iyo aad nooga nasiib badan dadka dalkeena hooyo jooga ee dadkoodii iyo dalkoodii iyo calankoodii ku horseeday ilaahayna wax ka bariyaa inuu naga dhigo kuwaas oo kale oo sanadaha dambe insha Allah dalkaygu hooyaa ciid aad bad ma hasatay kaasi waxa uu safiirka wareega ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Baasir Kaysar Cabdullaahi oo kala kulmay magaalada Bristol oo isna balan ka wareysanayay sidii looga ciiday magaalada Bristol Ambassador aad baan kaaga mahadcelinayaa aad iyo aad ma hasatay xaga farsamada xaga عيد مبارك كمان مسلمين اسلام كمان كستي جوجان waxaan leeyahay عيد مبارك كل عام وانتم بالخير ما شاء الله الهي سنة كيس كلا نبغى تجيو وكعيد الخير بس الهي waxaan rajaynayaa ummadda Soomaaliyeed kulubtooda inuu isku duwo inuu maaragtay amaankooda iyo nabadooda iyo dhan walbaba midda qulubta iyo midda physicalka iyo midda maaragtay shakhsigaaba inuu dejiyo qalbigooda iskuna dumada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan islaamka oo dhan dhaqan ka waran maanta Bristol looga ciiday balka sheekay ma sha Allah waxaad u malaysaa marka loo fiirsho wadankii in gaar ahaan dhinaca Muqdisho kuleta waan ognahay Soomaaliland Hargeysa iyo Puntland dhulkaas inay nabad qabaan oo lagu ciido laakiin waa Muqdisho dhib ka taagan ilaahay waxaan rajaynayaa ummadda si dhib ka saaro kuwa kale nicmada iyo amaanka ay haystaan inay u maaratay u siyaadsho labada ilaahay ku manaystay reer Quraysh ugu mana sheegtay inuu ka nabad geliyo juuca iyo خوفka in ilaahay ummadda Soomaaliyeed juuca iyo خوفkana ka saaro ciid wanaagsan ciid mubaarak wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
عيد يا سلام صديقنا عيد يا سلام ما هو السلام يا أمة المسلمين عيد مبارك عيد مبارك وكل عام وانتم بخير والسلام يا أمة المسلمين تابعين كستيت شوقان عيد هل خيك السلام يسان عيد السلام عيد طبعا هلقا كسلام سوماليا umad Soomaaliyeed oo dhan meel kasta ay joogaan adduunka dacaladiisa ka warrama Bristol si looga ciiday maanta Bristol ma sha Allah waxa looga ciiday si ma sha Allah idinka hadlayday si ma sha Allah oo aad iyo aad farxad u leh oo wanaagsan looga ciido maanta marka waxaan leeyahay sanadkiisa kala bashbaash iyo barwaaqo iyo reer salaam calaykum way tag soo mahadsan Axmed hadal de بسم الله الرحمن الرحيم maanta waxaan joognaa magaalada Bristol masjidka ku dafurtaysan taaganahay salaadii ciideed ma soo tukanay alxamdulillah ilaahay baa farxad mubarak ugu sameeyay waxaan ilaahay ka rajaynaynaa ummadda Soomaaliyeed aan ku salaameynaa in ciideeda kala ugu gaarsiin bashiir barwaaqo ciid farxad ilaahay baa dhigay waad mahadsantahay Axmed imakana halkan waxa ila taagan suldaanka magaalada Bristol Suldaan Cabdiraxmaan oo kula kulmay masaajidka la yiraahdo المسجد الهدى يا مقالة بريستول عرقة إنجليزكا سلطان كسر دو برنامجك سلامها يا مقالة بريستول كله هاي عادي آدمون ونكسن هاي عيد ونكسن من عيدنا الحمد لله رب العالمين وحن جهلية بريستول دمان كيدكم هذينا عيد بركيسن وأن لا هاي عيد مبارك أنت كل أنت عامل بخير ولا ليال عيد ونكسن من كعيدنا خير هلكا هلقا وضو يلا دالي إن شاء الله بإذن الله تعالى وحلاها ولا الله يا خيرك هلكا هلقا وضو يلا توجيني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما هستك سوى هو هاشة سلطان عبد الرحمن وكل مساجك مقالة بريستول بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن هلكا كل من مقالة بريستول أو يسون عيد كغيب قاتي حقيقة warfaafinta aan yiraahdo xisbiga ucud injineer Faysal Cabdiraxmaan oo aan weydiinay bal dareenkiisa sidii uu ciiday magaalada Bristol iyo sidii looga ciiday Faysal marka hore ku soo dhaw barnaamijka ciidaha magaalada Bristol salaamaha السلام عليكم وريا حرقة أطبق سلامية مرة ugu horeysa waxaan salaam u dirayaa shucuubta islaamka meel kasta ay ku nool yihiin oo leeyahay كل عام وأنتم بالخير marka labaad waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed iyaguna meel kasta ay ku nool yihiin gaar ahaan shacbiga reer Somaliland waxaan salaamayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland mudane Maxamed Maxamuud Siilaanyo iyo ku-xigeenkiisa Cabdiraxmaan Saylici waxaan salaamayaa golaha baarlamaanka iyo golaha guurtida ciidamada qalabka sida ee Jamhuuriyadda Somaliland waxaan salaamayaa saddexda xisbi qaran saddexdooda gudoomiye waxaan salaamayaa anigu waxaan ahay taageero xisbiga ucud ah waxaan salaamayaa musharax Jamaal Cali Xuseen iyo waxaan salaamayaa ku-xigeenkiisa sabra musharax ku-xigeenkiisa Cabdirashiid Mataan Faysal Cali Waraabe oo ah soo gudoomiyaha xisbiga iyo gudoomiyaha ku-xigeenka Cali Gure runtii reer Bristol si fiican baan maanta u ciidnay alxamdulillah waxaan u rajeynayaa dadka reer Somaliland bashbash iyo barwaaqo inuu Ilaahay nagu gaarsiiyo sanadkiisa gaar ahaan waxaan salaamayaa hooyadii حليمة هيبي حاج عبدي ويو أباهي عبد الرحمن محمد واحد سلامة يا ولالهاي ويجونا كل شوقات دافع الدنيا واحد سلامة يا ولالهاي خالد عبد الرحمن وكندا كنور يحاس كيسة يو إلتيسة واحد سلامة يا ولالهاي وسجون السويد كنور فيس سعيد عبد الرحمن حبلها يجي سلامة يا توي كفهم جاي أدو بلارن وقربها يدبت شوقات أدو سلامة يا واحد سلامة يا عروض هيدا أيمن فيصل عبد الرحمن يو عبد الرحمن فيصل عبد الرحمن يو هيان ويجونا يجو يهودود ويجونا شافي شوقة ده واحد اللي هاي إذا هاي نوجر سير باش يبرا واقع سنة كيسة نساس يسكوجنا هاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واد معصتك أسوحها إنجنير فيصل عبد الرحمن وكل من مقالة بريستول. إما كنا واحد لك كلنا يقدوميها قرب كدنيرتها حسب دلك UK محمد رويال marka maxamed royal bal ka waran maanta sida loogu ciiday magaalada Bristol marka hore dhamaantiin waa salaamantihiin farsamayaqaanka iyo suxufiga qaran ee waa Cabdi Xarago wallahi waxaan oran karaa waxa looga ciiday si ballaaran oo hore abid aan u dhicin
marka hore waxaan halkan ka salaamayaa waa madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Siilaanyo iyo marwadiisa madaxweyne ku-xigeenka iyo marwadiisa dhammaan golayaasha qaranka waxaan salaamayaa musharaxa madaxweyne waa aqoonyahan Jamaal Cali Xuseen iyo marwadiisa waxaan salaamayaa ku-xigeenka iyo marwadiisa dhammaan waxaan salaamayaa gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka waa mudane Faysal Cali Waraabe oon leeyahay dhammaantiin kullu caam wa antum bikhayr taqabbal Allah minna wa minkum saalih al-a'maal inta ka gadaal waxaan salaamayaa dhammaan shacabweynaha reer Soomaaliland ee ku dhaqan daafaha caalamka gaar ahaan dalka UK waxaan leeyahay ciid mubaarak waxaan kaloo salaamayaa dhammaan caa'iladayda aan halkan soo koobi karin hooyaday Caasha Cabdi Gahayr iyo aabahay Cabdi Axmed Daarood iyo dhammaan reer Axmed Daarood oo dhan waxaan leeyahay walaalahay meel kastoo dunida ka kala joogtaan kullu caam wa antum bikhayr maxamed waxaan ku weydiiyey runtii si fiican ba magaalada Bristol looga ciiday oo dadka muslimiinta oo dhan isku soo baxeen marka waxyaalaha la yaabka waxay ilaa dalkii waxaan ogeynay ay aad uga qayb qaadan jireen ciyaalka oo ciroolo iyo ciyaal bay soo bixi jireen oo la ciidi jiray marka maxaa odhan kartaa faqriga u dhaxeeya ciidda dalkii lagu ciido iyo ciidda lagu ciidayo qurbaha wallahi waxaan odhan karaa صحفي waxaan oran karaa wallahi waa kaafiye kala dheeri waayo marka last 10 years waxaan ku ciidayay qurbaha gaar ahaan dalka UK waxa aad loo tabayaa waxaynu ogsoonahay dalkeenii waa dal islaama waa dad ay shacabweynaha iyo shucuurta aad dareemi kartiin maalinta ciidda halkan waxa laga yaabaa marka salaada la isku yimaado in dareento ciidda laakiin wixii ka dambeeya aanad aragba dad ciidaya marka aad bay u adag tahay laakiin waxaan rajaynayaa sanadada soo socda inaan ku ciidi doono caasimadii iyo dhammaan dalkii Soomaaliland insha Allah imankana halkan waxa marka joogay gudoomiyaha garabka dhalinyarta ee xisbiga UCID ee dalka UK Maxamed Royal aad baad u mahadsan tahay assalaamu alaykum bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waxaan maanta halkan kula kulmay gudoomiyaha jaaliyadda magaalada Bristol Cabdi Cumar Qoobe iyo أحمد موسى رجع ضياش وقع مقالة بريستول مركه هرب الكورة هل كان دريان كينا ما أنت عيد مقالة بريستول لودا بالدقي أرسع لما أنت نادى المعزتين عيد وعيد أبو فرح في عم بنوعي وحلنا هيدا ما أنت بعيد وراك كل عام وانت وأنا مع الآدي هذا ونعكسين وعلى عن سكان كي شيء نصور عفيد صونا يفني سير في عن إن شاء الله نحن نقول إن إلهي بإنه سنة بالعبد عمر كورنا سديه معك مقالة بريستول جاليد مقالة بريستول سوي العيدين درين كود ما كان وضع يكتر جاليد بريستول في عم العيدين يرقي وينباع وان إمك صلاة الرسول حنا نمد آد لو مركا وحنا والحمد لله هل كنا إمك وحنا قضيين وكان قضيين مقالة عمر سياد عمر سياد دوم كسوي استاجي يا أحمد موسى مركا هرب لنا درين كور صاك والله ما تقول آد أنت عيد أبو الآن الآن سيدي عندك فرحان قصة الشيخ الله واحد عمر سياد وضياش هرمود جاليد مقالة بريستول أيها هل كان مكتوب عمر سياد بالكور طريقها مساك مقالة بريستول لو قاعد وحوي بطولتي وبطولوان مالك فرحتين ومالك كبيرين دمان كإسلام كوحن لي عيد مبارك مالك هذه يا رب وأنا فرحان بريستول سيدي لوجو صوب حبل كشكاء عمر سيادة يو جاليد بريستول سيس كو صوب حين يسيل لود بالدقة بل ترى ما كان وضعي سجود هان بالدقة سيادي يقعد عجيب بدن ولل وبلل ووين وإسكول ووين أيام حي لقيت كذي مساجد ذي ولقيت كذي dadku sidoo maanta u soo baxeen ma la xisaabi karaya loo la isku hambalyeeynaayo loo faraxsan yahay boqolkiiba boqol aad iyo aad ayaa maxay ahayd dadku maanta wada faraxsan yahay maqsuud u yahay waad mahadsantahay kaasi waxa ahaa odayaasha ugu caansan magaalada Bristol ama ragga Bristol Cumar Siyaad Maxamed Hayba oo sanad odayaasha magaalada Bristol ka waran maxaa dareenkaaga maanta loogu ciiday ciid al-fitriga magaalada Bristol wallahi ma sha Allah ciid mubarak ciid mubarak ciid caafimaad maanta aad iyo aad bay maanta u fiican tahay ودلك وير كل هاي بسنا والروب ودرورو ما شاء الله سبنا لما يسوع بحي
wuxuu ku kala tukaday meel ilaa 10 meelood maasha Allah aad iyo aad baa loo ciiday maasha Allah awlan aadna dareenkaaga ka warran maanta ciidda martiga aad iyo aad buu u faraxsantay maanta waa maalin weyn oo maalin muslimiinta farxadooda aan soo koobi karin dadka islaamka inta badan marka aniga teedu Ramadan sida alxamdulillah ayaa ilaahay Ramadan si fiican loo dhameeyay si fiican loo ciiday yaad halka ka salaamaysa dadkii waddanka halka waxa ka salaamaya asxaabteedii iyo dalkeedii waxa ka salaamaya hooyadii iyo abaay Fadlan Xuseen Maxamed iyo Cali Cadaan diiriye oo jooga magaalada Hargeysa ciid mubaarak min odayaasna jaalida magaalada Bristol halka taagan oo ciiday oo khamiiskiisa xiran ayaan salaamaya ayaan mar hore leh dareenkaaga ka war ciidda maanta magaalada Bristol ciid aad iyo aad u fiican yahay dhamaan waxa salaamaya dadka oo dhan masna wixii jooga dibadda iyo gudaha intii maqal iyo maqaalkayga waad mahadsantahay bismillahi raxmaani raxiim maanta waxaan la kulmay Axmed Naasir oo ah ragga dhalinyarta magaalada Bristol ugu firfircoon oo aan kula kulmay magaalada Bristol aan ka wareysanayo sidii bal looga ciiday magaalada Bristol Axmed Naasir oo bal ka war maanta magaalada Bristol sidee looga ciiday magaalada Bristol runtii aad baa looga ciiday number aad badan oo Soomaaliya degan waxa lagu qiyaasay ilaa dhowr iyo 20 kun oo Soomaaliya halkan aan ku ciidnay insha Allah si fiican bay ciidii noogu dhacday waxaan u diranaa dhammaan dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan gaar ahaan ummadda reer Somaliland waxaan leenahay ciid mubaarak كل عام وأنتم بخير إلهي نجا قبل عمل كي ولا سلام صور سميني رمضان الرباط إلهي خير دول جارسيو كان عنو حسنا يقول يدي قالوا كده محمد تكن جرا الجيسة وراكي بدرشيد حلالية دمان عروض هذي نقطة يونس حميد دمان هو يكيو أي الله عيد مبارك عيد مبارك احنا اصلا رمضان تيو هوري رمضان يعني يراهد عيد هوري عيد ما يشي كتفرق او دحيه maxaa la dareemi karaa tii hore tan maxaa ku kala duwan niyo horta faraq badan uma dhaxayo ciid waa waxa weeye ciid waa ciid laakiin se waxaad moodaa ramadantii hore xoogaa inay ramadantii hore ka yar dheeraad xagga waqtiga lagu yar garanaysa hooyinkan qurbaha jooga oo halka tii hore aan ka soomi jirnay 17 saacadood marka 18 bar bay noqotay marka waa yar dheeraad runtii loo de ajarku iska badanayo mar walba oo dibadda waqtigu dheeraado marka wax farq u dhaxeeyo runtii ومحسنتك أصبحها أحمد عبد الناصر أو رجل اللي يرتب بريستول وفر فرعون أخلاق من مجال بريستول thank you بسم الله الرحمن الرحيم waxaan kula kulmay magaalada Bristol Sultan Ali oo ragga odayaasha ay magaalada Bristol degan bal calaw ka warran maanta magaalada Bristol looga ciiday magaalada Bristol walaal aad iyo aad ayaa looga ciiday si fiican ayaa looga ciiday dadku aad bay isku soo baxeen salaanta ayay isku tabeynayeen wallahi si fiican oo moraad oo barxad ku jirta ayaa loo ciiday dadku salaanta ayaa la fidinayo qofka kale ayuu salaamay waxa ka muuqatay halka farxad iyo rayn iyo gobonimo ayaa ka muuqatay waayahay Sultan ku soo noqon doona حاجي محمد يا سيدا odayaasha magaalada Bristol حاجي محمد oo dareenkaaga ciida ka warran maanta dareenkaygu aad iyo aad bay u wanaagsan tahay waa aad iyo aad baan u wanaagsannahay waa ma sha Allah waa la isku soo baxay caruurtii iyo dumarkii iyo odayaashii iyo culimadii waa isku soo baxnay ilaahay baa naga wanaagsan inta islaamkana waxaan ugu ducaynaynaa inay si wanaagsan u ciidaan yaad halkan ka salaamaysaa wadankii iyo ummadii iyo dadkiiba halkan waxaan ka salaamayaa inaadeerkay maxamed jaamac ulle waxaan kaloo ka salaamayaa koos cabdi baaruud waxaan ka salaamayaa wixii ehele xigtadeeda iyo wixii islaamaba joogaba wadankii waan salaamayaa Sultan adiga ku soo noqon doona adiguna ka warna maanta magaalada Bristol dadkii soo wada baxay waad arkaysaa rag iyo dumar carruur wala wada sida looga ciiday marka ciidii hore iyo ciidda markaas marbarito bal dareenka ka war walaal dareenkaygu aad u sareeyaa caawa dadkuna aad iyo aad baa loo ciiday ciidii kale hore ciidana ka iyo aad uga ballaaran baa leeyahay dadku aad bay iskugu soo baxeen carruurtu farxad bay ku ciidaysaa dadka waaweyn farxad bay ku ciidayaan salaanta ayaa la isku tabinayaa والله عروض هو ما شاء الله مقالة بريستول سيد اللوجع عيدي ما قياس كربان وما هستها هاي سلطان سلامتهم ويتكلم هذا سلام سلطان وعنك السلام يا أبوي سلام العوالي وجوجا مقالة تقوى شاله وعنك الله السلام يا ولا شيء سليمان نبع سليمان دقة سليمان دمان تودو كلتوينا تيدا كوسر على سليمان إن طلبتوا بشارة واحد وده جوان أنت سرقي سيدو وجال لما أنت يوحي كلامك عالي مقاي كنا لما وصلنا وما هستهن سلطان
علي iyo Suldaan Maxamed Ali Good oo ragga odayaasha magaalada Suldaan Ali Saleebaan ay yiraahdeen kullu caam wa antum bi khayr madallah wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إما waxaan la kulmay nin ka mid ah dhalinyarada magaalada Bristol oo magaciisa la yaasha Shaafici bal dareenkaaga maanta ka war Ciid al-Fitriga loo dabaaldegay maanta الحمد لله رب العالمين maanta waa Ciid al-Fitriga waa lagu jiraa waa maalinta farxataan leh guud ahaan waddanka UK si wanaagsan baa looga eeday kuna lahayn magaalada Bristol waa haween farxataan baa dareemaya si wanaagsan baa looga eeday كل عام وانتم بخير تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال لأنها مركا وانتمام وحا سلامي المسلمين تا مركز كل شيء جرحان ومد السمال سلامي دي ودك يتاي دي قربان جونة هاي دي تاي ما رأيتي ملاك لو كنت جنبه إلهي نجح بلون لنا عماشة ونعكسنا ولا أنت مسوق جنبي وحنا سيجارة وسلام يا صاحبي يقولون صحفي حقه يسوون ما أنت عيد شمي والله من الأولي مركا دوحنا تقبل الله منكم منا ومنكم صالح الأعمال. واد محاصتها كاسوحة وشافيع وكم دليرت المجال بريستول. ما دليرت كم مجال بريستول حاجة وقوف فرعون أو يجون صفي عنو عيدية بلدرين كودا يوم ويدية مركا ورا بالخبر ولا درين حاجة يساد عيدين ما أنت مجال بريستول لو عيدي. مجال بريستول ما أنت سوي. الله مقعدكم بالعبية. مقعد هو مريح بسمة دي. عاد بدو ما صرت هاي. وحنا عيد ونعكسر. magaalada Bristol maanta waxa lagu ciiday si aad iyo aad u weyn leh dadkuna aad bay isku soo baxeen waa taadina inaad dareenka ka waran iyo Bristol si loogu ciiday maanta markaad eegto bismillaahir rahmaanir rahiim aba magaca ku bilaabay magacaygu waa Xamsaad bin Maxamed magaca dheer ibn Cali Yusar waxaan maanta ma sha Allah si fiican oo aad iyo aad u weyn ayaa loogu ciiday magaalada Bristol gaar ahaan waliba community-ga Soomaalida salaadina si fiican ugu tukanay aad baan u faraxsanahay dhamaan aad baan u faraxsanahay ma hasata magacaaga adoo nagu bilaabay bal dareenkaaga maanta si loogu ciiday magaalada Bristol iyo farxadda magaalada ka war السلام عليكم magacaygu waa Marwaan Khadar Cabdi waxaan ka mid ahay bulshada ku nool magaalada Bristol wallahi aad iyo aad maanta loo ciiday wala wada faraxsan yahay bulshadii wala wada artaa wala baashalaya waxaan leenahay kullu caam wa antum bikhair thank you ma hasatin saaxiibayaal magacaaga bilow markaa السلام عليكم magacaygu waa Nasro Cabdifood Cabdi waxaan halkan ka salaamayaa Soomaali weyn oo dhan meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa bikhair meel kasta aan joogno waxaan joognaa maanta magaalada Bristol magaalada Ingiriiska gobolka Bristol waxaan leenahay all family-ka Soomaalida Bristol oo kun muslimiinta waxaan leenahay ciid wanaagsan sidee Bristol ka waran saaray sidee looga ciiday magaalada Bristol markaad eegto sanadkii hore iyo sanadkan bal dareenkaaga waa sidee markaad eegto magacayga ku sax magacayga waa Nasro sorry Bristol waxa looga ciiday ma sha Allah tabarakallah aad baan u faraxsanahay ma sha Allah tabarakallah sanadkii maanta wax la isku dhiga ma sha Allah aan ku daydana way ciidayaan ha magaca adeer salaam hello يا سلام صح عيد وناكسن ده يا عيد وناكسن سفي علم وعيدي عيد وناكسن عيد وناكسن waxaan kale ku darsanahay waxaan salaamayaa walaalahay oo dhan meel kasta ay joogaan familkayga oo dhan hooyaday Aamin Maxamed Xasan iyo aabahay Cabdifood Cabdi walaalahay oo dhan meel kasta ay joogaan dalka iyo dibadda oo dhan salaam calaykum thank you bismillahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh imankana waxaan la kulmaanay oo ku jirna barnaamijkii ciidda magaalada Bristol aan ka soo duubaynay almiso ka mid ah dhalinyarta ugu firfircoon magaalada Bristol almiso marka hore bal dareenkaaga ka waran iyo maanta ciidii Ciid al-Fitriga ee magaalada Bristol laga ciiday wallahi maanta waa maalin aad u qaaliya waa maalin aad u farxad qof kasta oo islaam ah uu faraxsan yahay waxaan joognaa magaalada Bristol ee cariga Ingiriiska halkaas oo aan kula qaadanay kumanaan islaam oo ku nool magaaladan waa maalin farxada bal almiso markii sanadkii hore ciidii la ciiday tan markaas barbar dhigto ma soo kartaa wax faraqa u dhaxeeya mise waa isla sidoo wallahi ciiduhu markasta way ka duwan yihiin maalmaha kale waa maalin qof kasta oo islaam ah aad wejigiisa ka dareemayso صدق عشاء الحمد لله صدق عشاء بشهر رمضان وانا soo soomay si fiican bay noogu dhamaatay maantana waa kaasiyo ay dadka soo wada baxaan oo la wada tabaashadayo xaqaas waa xaqaan salaadii maanta ku tukanayeen waa halkaas waxa sugi bidii kumanaan qof oo Soomaaliya ah ku tukaday
ودقن مقالة بريستول كاسي وحوها ألمس أو يسنا كم دار ليرتو السلام يا هل كيف تمام دمان الشعب الإسلام غير سوماليلاند غير قبلي وحلو وحي قرنيا waxaan salaamayaa hooyadii cibaadada walaashii halkan rono ku nool magaalada Galmudug waxaan leeyahay ciid mubaarak dhamaan walaalahay wixii muuqayga garnayay dhamaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi waad mahadsantahay almiskuha khaasan oo dhalinyarta magaalada Bristol ku nool الله كم dhalinyarta magaalada Bristol oo u dabaaldegay ciid al-fitrigi iyagoo aad u labisan marka ugu horeeya halka waxa taagan engineer Faisal dareenkaaga marka hore ciid balka waran runtii aad baan u ciiday si fiican bay u dhacday alxamdulillah de marka dhalinyartii reer Bristol u xidhay madaxweynaha salaamada jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Axmed Silaayo waxaan salaameynaa iyo ku-xigeenkiisa dhammaan ciidamada qaranka guurtida iyo baarlamaanka oo salaamayna saddex xisbi qaran oo salaamayna anigu taageerayaal waxaan ahay xisbiga UCD Sheekh Jamaal Ali Xuseen iyo ku-xigeenkiisa kala waxaan salaamayna Injineer Faisal Ali Waraabe iyo Cali Guri anu toosan oran lahaa dhammaan shacbiga reer Somaliland waxaan leenahay ciid mubaarak ilaahay ku gaarsiiyo sanadkiisa bashbash iyo barwaaqo أمين أحمد بحال كايس تاجر أحمد وطريق كاجا ما أنت عيدك أو كشكة. بسم الله الرحمن الرحيم. سألوا شكرت من عيد أحمد. أنا أقول هذا هي أفضل ما عند اليرتاع يمكن وحنا الإسلام يا شعب لها إسلام هذا والله ما أنت طريق قوي هيك ما تسفي عنه ونعيدني. يصاعد. إن شاء الله إنه إلهي حضراتي نقاط مرض تهيك الله يقدر شيء عاد ما إن شاء الله حمزة أيها سنة تاجر أو حاجة دليرت مقالة بريستول وقف فرع حمزة طريقها كور. والله ما شاء الله طريقك ما أنت نادي أقول لك سيأي سبنا العيدني تذكرنا بخسرنا سبنا العيدني وحدي غير ورمز كيجونا في العيد مبارك كل عام وأنتم بخير سنة كسنة إلهي كرسي خير أنت هم سبنا إلهي سبنا أحمد هذا طريقها أحمد. ها. عيد مبارك من أنا وتكلم. وياي أحمد يسوون لك دليرت. إنك أنا وارد دليرة ورقي فيلم أيانو تان داوني مثل بلد فلا دريان كعيدة كشكة. والله عيد إلهي وحنا مود الإسلام كقول تشيني باش بشيء بالواقع عيد مبارك ولا مود الإسلام. محمود هذا دريان كعيدة بريستول كشكة. هذا الشيء ولا دمي. كل عام وأنتم بخير. أبو عمي. مصطفى oo ah nin dhalinyarada magaalada Bristol ugu fircoon abwaan Bristol oo caana كورن مصور طريقها عيد بالمات كورن. بسم الله الرحمن الرحيم. عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك. من قدرت إلهي نجا شبرك إسلام سوكي صلاتي إدمان ماشي صالحة. بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan halkan kula kulmay magaalada Bristol oo iyaguna si fiican u ciiday Cabdullaahi iyo Cabdikariin oo rag odayaasha ah magaalada Bristol degan bal marka hore dareenkiina Cabdullaahi oo ka waran adiga dareenkaaga sida looga ciiday magaalada Bristol. magaalada Bristol waxaa looga ciiday si aad u wanaagsan dhammaan muslimiintana waxaan leeyahay ciid mubaarak meel kasta ay joogaan ummadda Soomaaliyeed ummadda muslimiinta ah waxaan leeyahay ciid mubaarak ciid wanaagsan ku ciida wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. cabdikariin baa sanaha ka taagan cabdikariin bal ka waran dareenkaaga iyo magaaladan sidii looga ciiday magaalada Bristol ee carriga Ingiriiska ciid al-fitrigi maanta. bismillaahir rahmaanir rahiim wallahi si fiican baa looga ciiday ciid maanta Bristol waxaan kaloo salaamayaa dhammaan ummadda islaamka oo dhan meel kasta joogaan gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan family-ga dhammaan meel kasta kala joogaan iyo adigoo xaraga iyo Cabdullaahi iyo carruurtiisa xaaskiisa waan salaamayaa ciidda sida looga soo looga ciiday maanta waad arki kartaa aad bay u farxan tahay oo waa maalin aad inagu qaaliyo maadaama bishii Ramadaan soo soomaneen oo soo dadaalay ilaahay acmaashan wanaagsan naga aqbalay waxaan oran karaa waa ciid aad u badan aad iyo aad u noqdaan waxaan leeyahay dhamaantiin ciid mubaarak. Thank you very much Cabdullaahi iyo Cabdikariin ba aad u salaamay ciid mubaarak kullu caam.
بسم الله الرحمن الرحيم halkan maanta waxaan kula kulmay dhalinyarta magaalada Bristol oo si fiican u ciiday halka waxa soo taagan khadar bal dareenkaaga ciida marka hore ka warsax ciida wallahi aad iyo aad ayaan maanta u faraxsanahay ummadda muslimiinta oo dhan dhammaan waan salaamaya waxaan leeyahay ciid mubaarak ummadda khaas ahaan ummadda Soomaaliyeed ciid mubaarak baan leeyahay ummadda Bristol oo dhan waan salaamaya dhammaan magaalada Bristol waxa muslim ku nool ciid mubaarak baan leeyahay adna ciid mubaarak baan ku leeyahay xaaj waayahay maxamed baa isla halka taagan maxamed oo dareenkaaga bal ka war ciida في عيني هاي ما شاء الله في عمل waxaan leeyahay dhammaan ummadda muslimiinta meel ka soo jeeda si gaar ah u sameeyay ummadda muslimiinta kula caam waanta bi khayr baan leeyahay ma sha Allah wad ma saddex halka taagan farxaan qudi oo ragga ugu culus magaalada Bristol ka war dareenkaaga ciida farxaan qudi assalaamu alaykum wanaagsan walaal ciid mubaarak ciid mubaarak hablahan u yeedhay islaamka oo dhan waxaan leeyahay farxad iyo reereyn sanadka guriga ilaahay nagu gaarsiiyo ciid wanaagsan baan leeyahay ciid wanaagsan baan leeyahay dhammaan gaar ahaan ummadda islaamka iyo Bristol السلام عليكم عبد الغني بس لها كانت تاغن ديرته magaalada Bristol عبد الغني ka war dareenka والله الحمد لله aad iyo aad ayaan faraxsanahay waayo maanta waxa weey maalin aad u weyn ciid fitri dhammaan waxaan leeyahay wadanka gudihiisa iyo dibadiisaba dadka ku ciiday waxaan leeyahay كل عام وانتم بخير كل عام وانتم بخير بالله تقبل الله عيد مبارك بالله تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال الهينا هي نقابل عملكم ونكسر aan soo qabanay dhammaan waxaan leeyahay ilaahay tanteeda hay nagu gaarsiiyay inagoo nabad qabna wadankana waxaan u rajaynaynaa in nabadda iyo horumarka uu sii wado بسم الله الرحمن الرحيم maantana halkan waxaan kula kulmay iyadoo tahay maalintii ciid laga dabaaldegay magaalada Bristol yaasiin oo ah nin dhalinyaro ah oo magaalada Bristol degan yaasiin oo dareenkaaga marka hore iyo sidii looga ciiday maanta magaalada Bristol marka sheekay marka hore بسم الله الرحمن الرحيم maanta dareenkayga ciid lama soo koobi karayo si wanaagsan baa loo ciiday ma sha Allah baa lagu ciiday khayr baa lagu ciiday رمضان آد إلهي ودبيريه باهيد إلهي سبحانه وتعالى dadku aad bay isaga wanaagsan magaaladan waxaan u salaameynaa dhammaan muslimiinta dalka joogto oo iyo dibadiisa ciid mubaarak aad baan u salaameynaa waxaan hargeysa aad uga salaamayaa hooyaday iyo inanteeda Yusra iyo Isra iyo xaajeeda aad baan u salaamayaa السلام عليكم ورحمة الله وعليكم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته halkana waxaan kula kulmay inan kamid ah hablaha degan magaalada Bristol oo magaceeda Leila Sahra oo iyaduna saaka ciiday Sahray bal dareenkaaga marka hore bal looga sheekay ciidii magaalada Bristol si loo ciiday السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Bristol si fiican baan uga ciidnay alxamdulillah waa soo baxnay ciid wanaagsan baan ciidnay dadkaygana waxaan u rajaynaynaa sidoo kale inay ciid wanaagsan ciideen كل عام وأنتم بالخير waxaan halkan jecelahay inaan ka salaamo dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo muslimiinta ah waxaa farxad weyn saakay ah in walaalkayga muslimka ah ee saakin la daldala la rabay la cafiyo taas mid ugu horeyso oo farxadeyda ay tahay aad second time waxaan rabaa inaan halkan ka salaamo dhammaan ummadda muslimiinta oo maanta wada ciiday kulligood waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh waxaan jecelahay halkan inaan ka salaamo hooyaday macaan Khadiija Axmed Maxamed عندنا هويدا ينبيو بالخلاء هويدا كين أحمد تجي محمد تجي أسد سيدو كلاب تجي عبدي عن هويدا يجابو لما ولا لها يجون سوكو بكرين هالكن فحق الله هالكن كسلام أيام من handsome husband محمد إبراهيم على كل عام وأنتم بالخير السلام عليكم وما صرت والله thank you very much بسم الله الرحمن الرحيم halka waxa kula kulmay khadar oo ah nin dhalinyaro oo qoyahana oo degan magaalada Bristol iyo suhaybiyare oo iyaguna si fiican u soo ciido oo degan magaalada Bristol khadar marka ugu horeysa bal dareenkaaga ciida maanta ciid fitri magaalada Bristol isku soo baxay bal ka sheekay khadar السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maanta waa tahay maalintii koowaad ciid fitriga waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan muslimiinta meel kasta ay joogaan gaar ahaan waxaan ka salaamayaa hooyaday iyo aabahay dul cabdi tahay iyo aabahay fadlaay waxaan kaloo halkan ka salaamayaa xaaskayga maxamed saciid iyo wiilkayga qorada cabdi waa ku barakaysan ayaynu soo dhamaysanay mida maalintii koowaad farxaddii ciidan ku jiray
هذه يا أكبر فرحة علينا ما تعرف نروح وليها وين عبد الحرم غير الصلاة سواء ما كان سيسيين في حد قاطع صلاة عيد ترى كيف كنت يا أبو كسيهي ما فرحة علينا أكبر صلاة كور خضروا عيدي هراء يعيد لما كسر بريتو ضد خسير في هراء محيك كل دول في هراء يتني معه والله عبده هو دريبي كتاب في سوق القديرة صورنا هراء عندنا عيد يعني واحد من فرح سيهين وقت في عنه هو في عنه لو سهى رمضان تيجي ونصور من وقت ديرة الحمد لله عمتي هذا سهيد يرى أيها كان شوقة سهيد هذا راه هذا يا كسلام استاذ سهيد كور عيد ما هي ما تمر عيدك هي يا سلام استاذ هو يلا أباها أو كلا شوقة هل كلا شوقة هو يا أبو بريستول أوكي محل لها أبا وحل عيد ولا سنة هو ينا عيد ولا سنة كور عيدي ما عيد وصوم ما فرحت هاي تصدق عنه ما عيدي هوري عيدا كيف تعيش هاي سنة كيف ولا سنة أنا ولا سنة أوكي تكفي فرمان شهير بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن هلكن كل ماي صحفي جالسنا غير بريستول عانكا مهدي حوالي أو هلكن شوقة إيو جامعة شوف وها دليرتو ku caansaneed Soomaaliland oo kubadda cagta caan ku ahaa oo u ciyaari jiray Sooyaal marka hore mahad xawaadle ka waran dareenkaaga adoo soo koobaya sidii maanta looga ciiday magaalada Bristol sida daawadayaal la wada socotaan aad baan u maasantahay xarago maanta waxa looga ciiday magaalada Bristol si aan soo koobi kareynin oo dadweynuhu aad isugu soo baxeen daawadayaal cabdi aad baan ku salaamay caruur iyo ciroolaba waa la ciiday maanta waa tahay jaamac Jaffa wuxuu ahaa dhalinyarta ugu caansan kubadda cagta haddana naqolo magaalada Bristol hadda wada degan jaamac balka hor dareenkaaga maanta si loo ciiday magaalada Bristol ما شاء الله ودرين فرحad leh oo aad iyo aad u sareeya muslimiinta oo dhan waxaan leeyahay ciid wanaagsan meel kasta adduunka joogan waxaan si gaar ah u salaamayaa waalidkay waxaan ku xigsiinayaa carruurta waxaan ku xigsiinayaa ehelka asxaabta iyo bahdii sportiga dhammaan meel kasta ay joogan ay maqlayaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan aad iyo aad baad mahadsantiin dhamaantiinba بسم الله الرحمن الرحيم إما كان واحد مقالة بريستول كل ما يفرق باليرا ويجون سويدن كيمي أو هالكن دوني ما تين دبالدقة عيد الفطر كنا لا دبالدقة مقالة بريستول المقعة يكادف عن هذا بالمقعة ما كرولا الله بالعبية بالكور طريق عيد مقالة بريستول ستيل لوجع عيدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعة يقول الله أمور محمد داهر واحد كيمي أنا سويدن مقالة يونشوا بالله يرابن تجني الحمد لله أنا جاي هيك عفوت شيء كادف بام بالحيث من وقت حاضر كنا بريستول بان سوق لي آدي بريستول مقالات قرقوية مبتكون ودعيتين الواقع المجرى الحمد لله نبقبوي نقول في عنا هاي الحمد لله وحن حلقة شعلان لنا كسلامه دوينا دمان رئيس سومالان أردن ومدة الصوماليات ومدة مسلم كوردن خاصة وحنا آدو سلامي أولالك عبد كي تامع يينا كي يقوليت أمورو تشوغا مقالات هرقيسة يولالك عروتي سياحة كيسة دمان فامي كوردن وسلام يا رئيس هرقيسة رئيس بلوك هرقيسة أردن وسلام سبحان الله نبض سلام أردن سبحان الله أردن واي أظن ولا المقعة أظن أقول لا كور عيد المقالة أظن كادف نوجي يبيو بريستول نقول ده بالدقة عيد بسم الله الرحمن الرحيم مقعة واحدة عبدالله مقالة كادف كنيد يا مقالة بريستول وحلا هي مسؤولية مقالة جوان كل عام وأنتم بخير وأنا هون كسلام يا دمار وحيد مقعة مقعة وكرنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عيد مبارك عيد مبارك والعافية يا أبو الناس أنتم بخير بمناسبة عيد الإفطار عيد الفطر المبارك عاده الله علينا باليمن والبركات إن شاء الله كل عام وأنتم بخير السلام عليكم مقعي وزكري waxaan joogaa Bristol waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhair السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سومالي مeel kasto ay wada joogto ciid mubaarak ayaan leeyahay midii farax sanadka dambe ilaa inta laga gaarsiinayo qaali iyo bashbash barwaaqo ilaahay lagu gaarsiinayo I'm waiting you bro أحمد السلام عليكم عيد مبارك مسلمين gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto waxaan ku rajeynayaa sanadkan sanadkiisa inaan anagu caafimaad qabno sidaan ka wanaagsan aan ciid wada gaarno insha Allah okay thanks for my بسم الله الرحمن الرحيم عبد الغني وفلوك عبد الجبار وفلوك مقالة بريستول عبد الغني طريقها كور ما تسوي فرحت بنو كعيدني بشي لحسن ودماتي بالقبوب إنه هاي الحمد لله رب العالمين عيد مبارك والله هاي
ummadda Soomaaliyeed qaraabada familka aabahay walaalahay reerkayga dhammaantood ciid mubaarak ayaan leeyahay aad u mahadsantahay bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan halkan kula kulmay Cabdiqani oo nin dhalinyaro oo isna ka ciiday magaalada Bristol Cabdiqani bal dareenkaaga ciida maanta ka sheekay ka arkatay magaaladii Bristol baarkada dadkii oo dhan wada jooga wada buuxa ma sha Allah dadkii wada qoslaya baarkada saaka ku nuuray waliba dhammaan dadkii Soomaaliland iyo dadkii Soomaaliya meel kastaba jooga waxa leenahay ciid wanaagsan dhammaan تانكي فرما شاء الله ما صوت ولا كل ما ينين لا يهضو عبد الناصر ورقة ضياش مقالة بريستول عبد الناصر دريك هاي كور ما أنت دريك كيف والله قاعد في حين شعور كان ونقول رضان تسوق بدني ما أنت ما شاء الله ده بعيد إنه عفمات وحنا لنا مدة مسلمين تأيو لسه مال لا ضر يا عيد وناكسن عيد مبارك ومهاصتك على سواء أحمد ناصر وكل مقالة بريستول thanks الله شو أنت ما arxim halkan waxaan kula kulmay mawlud oo san rag shaleed magaalada Bristol ku nool ee ariga Ingiriiska mawlud bal dareenkaaga ciida maanta si magaaladii Bristol looga dabaaldegay ciid al-fitrigi bal ka sheekee ma dareenku maanta waa 100% aad baa loo faraxsay si fiican baa looga ciiday magaalada Bristol dhammaan waxaan salaamayaa shacbiga reer Somaliland gaar ahaan reer Bristol aan la ciid caafiya iyo dadka muslimka oo dhan meel kasta joogaan صلاة يسوع كنا ما شاء الله دول فرحسي ما أنت هو يا هذا ما صرت المولد بوها كاسون كله كل ما مقالة بريستول نيكي رجل ضياش أقول فرحان مقالة بريستول الله رفعنا نين اللي يرى وعيدي ودقن مقالة بريستول أيام هنا كل ما بالكور ولا درين كاج عيد هي هذا كسلام يا ما قاعد على كل نوبل عمر محمد علي وحالك السلام يا دمان المسلمين تودن بيقول بيجوا كجوجان أخر مقالة بريستول في عبد لو عيدي كوميدي الصومال سبعين بوعيدين دمان مسلمين تدن أبي ما تفرحسين ومال العيدة ومال أنتي مسلمين تها هالخير وحنا كسلام يا ويني فايد محمد حامد يا دمان وهلا يردن وهالكان نكسوكو بكرين يا حاسي في الحي وراهين وحلا عيد مبارك دمان صاحب بدي دمان وحي مغير يو يقرني مقعيا عيد مبارك دماتين هذا ما صرت إن شاء الله إلهي نسير